nolosheenna iyo jiritaankeenaba waxay soconaysaa maalmo kooban oo alla weyne uu cayimay oo kaliya si waliba ay inooga hor yimaadaan dhibaatooyin iyo carqalad waynu ka gudubnaa waxaase ina hor yaalla doorasho adag si waliba aan wax u dooranana hal miisaan ayaan wada saarannahay sidaasi darteed waxaan dooranayno waa inaan garannaa aniga ama adiga la'aanteena noloshu waa ay sii jiraysaa oo waa mid sii soconaysa oo aan istaagayn sidaasi darteed qof waliba waa inuu ogaadaa natiijada doorashadiisa waa maxay maal adduunyo aan u saamaxo inuu soo fuulo baska dabcan haa haddii aan maal helo waxaan awoodaa in aan sameeyo waxaan doono iyo inaan helo wax waliba oo aan doono soo fuul gaariga xaaskayga soo fuul baska waxaa gaariga ila saaran hanti ugu dambayntii carruur soo fuula gaariga waxaan idin sugayay wakhti dheer oo waa maxay kanina jago mansabka waxaan awoodaa in aan sameeyo wax waliba iyo inaan helo wax waliba aan doono soo fuul baabuurka waa ay sii soconaysaa nolosha isaga oo wax uu doono dunida ka dooranayo waa maxay diin waqtiga diinta lama joogo waxaan doonayaa nolosha macaan ee dunida diinta wax waliba way ku xadidaysaa xalaal iyo xaaraan salaad iyo sako soon iyo xijaab waxaas iyo waxaas maya waan u soo laabanayaa diinta ka tag aan ka raaxaysta dunida السلام عليكم maxaa jira soo deg fadlan diin ma kula socotaa maya waxaan kaga soo tegay meel halkaan ah ee ii ogolow inaan dib u soo qaado ma awoodid inaad dib u laabato safarkaaga waa uu dhammaaday laakiin gaariga ayaan wadaa oo maal iyo jago iyo xaas iyo carruurba ii saaran yihiin kuwaasi xagga alle waxba kaagama tarayaan waxa ku anfacayay waa diintaas oo aad dariiqaasi ku soo dhaaftay walaalkayow kumaa tahay horta adiga waxaan ahay meydkii aad hilmaantay ee aadan u diyaar garoobin haddaba sidaasi ayay nolosha ku sii soconaysaa kolkaad dhimato oo hawshaadii qof kale ayaa sii wadaya sidaasi darteed qof waliba wuxa uu doortay ayuu la meelgelayaa حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ilaa iyo markii ay dhimashadu u timaado midkood kuwa la wadaajiyey shariigyada alle wuxuu yidhaahdaa rabbigaygiyow dib ii celi si aan ugu falo wanaag wixii aan ugu soo tagay gadaal may wax kale ma ahee waa uun kelimad uu iska yidhaahday gadaashoodna waxa ah barsakh xijaab ilaa maalinta ay ahaan doonaan kuwa la soo bixiyey فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون haddaba marka suurka la afuufo ma jiri doonto qaraabanimo ka dhaxaysa dadka maalintaasi waxna isma weydiin doonaan midkood midka kale فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
marka kuwa miisaankoodu camalada wanaagsan ay culus yihiin kuwaasi waa kuwa liibaanayaasha ah. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون kuwana ay miisaankoodu camalada wanaagsan ay yihiin khafiif kuwaasi waa kuwa khasaara nafahooda naar gudaheeda bay ku waari doonaan. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون naartu waxay gubi doontaa wejiyadooda dhexdeeda ayay ku qayaxmi doonaan, yacni diirka iyo hilibka kaga dhici doonaa iyadoo ay u dheer tahay faruuryo dhac iyo weji doorsan.